السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qaaliga ah waad salaamantihiin meel walba oo aad dunida ka joogtaan waa walaalkiina Saadaq channelka aad nagala socotaana waa Saadaq Simba official maanta waxaan idin wadaa sheekooyin qosol badan sheekooyinkaas oo runtii anigaba aan saaid ugu qoslay markii aan aqristay sheekooyinkana raba inaan ila wadaago waxaan ka soo sameyn doonaa qaybo badan maanta waxaan idin wadaa qaybtii koowaad ee sheekooyinka waxaan jeclahay dad badan oo stress hayo ama dad badan oo fikir iyo wax ku maskaxdooda ku jiro markii ay sheekooyinkan dhageystaan in ay ku qosli doonaan waana sababta aan u sameeyay in aan program sheekooyin ah aan soo duubo asxaabteyda sheekada koowaad ayaa haddana soo qaadanaynaa sheekada koowaad waxay leedahay nin reer mudug ah oo masaajid ku dukanaya ayaa markii salaada laga baxay waxaa lagu yiri noo ducay kadibna intuu istaagay ayuu yiri kuwaan gablamin jirkooduna cadaabtu gubin guulow naga yeel dhamaanteen marka halkaas marayay ayaa imaamkii yiri bes jooji kadibna dadkii oo yaaban buu yiri imaamkii waa heestii farxiyo fiska ninkii ducaynayay oo afka jabsaday ayaa yiri imaamow إلى هسه وادي ستا والله شيء عادي هذا قصر بدن كاميرا اسك سحيدي marka sheekada ku xigta ayaa rabaa hadan inaan noo soo qaato sheekada ku xigta waatana sheekada waxay ku saabsan tahay dadka cayilan macnaha naag aad u cayilan oo xoogaha socodka dhibayo oo xanuunsan ayaa dhakhtar u tagtay baaritaan dheer kadib waxaa loo sheegay in ay caafimaad qabto oo kaliya miisaankeeda aad u batay oo baruur badan ay fuushay sidaas darteed dhakhtarkii wuxuu kula taliyay in ay cuntada iska yareyso sida kale dhakhtarka wuxuu u sheegay in habeenkii aysan wax casho ah cuni karin naagtii okay ayay tiri gurigeedii ayayna iska aaday habeenkii markii la gaaray ayaa gabadheedii ku tiri hooyo dhakhtarkii ayaa igu yiri cashada jooji ee waxaad ii soo kululeysaa qadadii maanta macnaha dhakhtarka wuxuu ka diiday in ay casho cunto balse ayada gabadheeda waxay u dirsatay waxay dhahday dhakhtarka wuxuu ii diiday inaan casho cuno macnaha cashada oo waqtiga cashada la sameeyay aan cuno waxaad ii keentaa balse qadadii maanta ii kululay still waxay cunaysaa sheekada waa sheeko aad u fariya aad u qosol badan sheekada noogu xigta oo aan soo qaadanayno waa kana waa sheekadan hadda kahor nin guri dabaq ah deganaa oo dabaqa ugu koreeyo deganaa oo iska leersanayo ayaa arkay nin dhulka jooga oo isaga u yeerayo kadibna hoos ayuu ugu soo degtay marka uu u yimid ninkii ayuu weydiiyey waxa uu ka rabo walaalow nin uu dhib haysto ayaan ahay kadibna ninkii wuxuu dhahay walaalow nin dhib haysto ayaan ahay in aad lacag igu kaalmayso ayaan ka rabaa ninkii guriga lahaa okay soo bax ayuu dhahay dabaqa ugu sareeyo ayuuna saaray kadibna wuxuu uu dhahay allah ku kaalmeeyo ninkii tuugsanayay intuu xanaaqay ayuu yiri war hadday sidaas tahay intaasoo dhan maxaad iisoo lugaysiisay oo dabaqa iisoo saartay kadibna ninkii dabaqa lahaa wuxuu yiri war adiga markii koowaad aan lug gooyay oo adigu hoos nagala soo hadli kara hoos ii soo dejisay runtii waa sheeko aad iyo aad u qosol badan asxaabta inta aan muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.